بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضي سونقد ونكسن مركلة يوم مادتني بيولوجيا فصل كأفراد وحين برنا أرضي جبتر كأفراد مادة بيولوجيا فصل كلبية طبانات فونفوركا كارهان advanced genetics and heredity maxaan u leenahay advanced genetics sidaan ognahay fasalkeeni labaad ee dugsiga sare form 2 waxaynu ku soo qaadanay introduction to genetics horudhac ku saabsan cilmiga lagu barto hidaha hadda form 4 ayaan nahay waxaanu u dhigaynaa ciwaanka chapterkeena advanced genetics oo laga wado iyadoo la hormariyay oo la ballaariyay chapterkii hidaha ee geneticska waayahay chapterkani wuxuu inooga koobnaan doonaa qaybahan soo socda ee kala ah heredity oo ah hidaha sidoo kale qaybta labaad aynu ku baranayna oo ah genetic engineering inta uu socdo chapterkani waxaanu ku soo qaadan doonaa labadaas qaybood ee waaweyn ee uu ka koobnaan doono chapterka geneticska waayahay haddaba ardaygu markuu u dhammaado chapterkani wuxuu awood u yeelan doonaa in uu qeexi karo ereyga heredity hiddo muxuu yahay waa inaysan kaaga khaldamin hiddo inaysan ahayn dhaqan ee hidduhu uu yahay wax laga la hidda raaco ama laga dhaxlo abnaqa iyo tafiirta sidoo kale ardaygu wuxuu awood u yeelan doonaa inta uu chapterkani socdo in uu garan karo genetic terms erey bixinta la xiriirto chapterkani oo ah dominant shiiqiye recessive shiiqsane homozygous bacrimino isku jaada heterozygous bacrimino kala jaada genotype hiddo tilmaame phenotype hiddo muujiye aliil qandiyo true breeding isku breedingka truega ee saafiga ah iyo sidoo kale wax la yiraahdo habka aynu ku shaqeyn doono ee test cross ayuu awood u yeelan doonaa ardayga inuu barto wuxuu qeexi doonaa uu fahmi doonaa xeerka Mendel xeerarkii uu dejiyay aqoon-yahankii ah Gregor Mendel gaar ahaan maadaama uu saddex xeer dejiyay annagu waxaynu qaadan doonaa xeerka koowaad oo ah law of segregation xeerka takooridda gaar ahaan monohybrid cross ma ku qaadan doono dihybrid waxaynu ku baran doonaa monohybrid cross oo ah hal bacriminaha ayaanu baran doonaa talaalka hal bacriminaha waayahay ardaygu wuxuu kala awoodiyaan doonaa inuu kala barto waxa la yiraahdo codominance iyo waxa la yiraahdo incomplete dominance shiiqin dhameystiran iyo shiiqid aan dhameystirnayn sidoo kale wuxuu awood u yeelan doonaa in uu sharaxaad ka bixiyo xanuunada cudurrada genetic disease-ka ama genetic defects-ka ee ku dhaco qofka bini aadanka ay sababeen waxyaabo ka yimi hidda ahaan u soo baxay wuxuu kale awood u yeelan doonaa inuu isticmaalo shaxanka la yiraahdo Punnett square oo lagu xalliyo habka monohybrid crosska aynu baran doonaa hadduu ilaa yidhaahdo cashirkeenna koowaad ee chapterkeenna geneticska qaybtiisa koowaad ee heredity waayahay marka hore waa inaynu isla fahanaa ereyga heredity muxuu yahay aynu ku celcelinay in badan oo ah hiddo muxuu yahay dadka aan afka Soomaaliga aan u abayeelin ayaa waxay mar walba isticmaalaan in ereyga ay ka leexiyaan wadadii uu lahaa ee saxda ah heredity markaan dhahna hiddo waa in sifo ama astaan laga dhaxlo waalidka ayna u gudubto dhashooda ayaa waxaa la yiraahdaa hiddo tafiir waxaa la yiraahdaa hiddo heredity ma dhaheeno waxa la yiraahdo dhaqan ama caado soo jireena ma ahan heredity waxa qasab ah in noole wax laga dhaxlay ay tahay haddaba haddaan fahanay heredity waa maxay is the process by which parents waa habka waalidiintu pass ay gudbiyaan traits waa maxay traits waa astaan ama characteristics waa dhihi kartaa instead of trait oo ay u gudbiyaan to their offspring dhashooda tafiirtooda faracooda caruurtooda goorma during reproduction
maxaan uga jeedaa during reproduction waxaan uga jeednaa during gamete formation waxaa loo gudbinayaa sifadii waalidka uu lahaa tusaale sifada dheeraanta ay waalidku leeyihiin waxay u gudbaysaa dhashooda eye color midabka isha gaabna waxa la xilmaala intelligence garaadka iyo sifooyin badan oo aan dhigan doono in ay ka gudubto waalidka una gudubto dhasha ayaa la yiraahdaa heredity hadda waxa isweydiinayna marka so what is genetics hadda waa maxay genetics maadaama aan fahanay heredity hadda genetics waa maxay genetics waa laan ka mida laamaha barashada cilmiga biology-ga aynu ku soo aragnay fasalkeeni koowaad ee dugsiga sare form 1 aynu ku dhahnay waa the study barashada of heredity hidii hadda aan sheegaynay ee laga hidda raacayo waalidka iyo sidoo kale variation kala duwanaanshaha oo aynu ku soo aragnay iyadana fasalkeeni form 2 ga haddana aan ku soo celin doono maxaan fahanay heredity-gu inay tahay in astaan ay ka gudubto waalidka ayna u gudubto dhashooda faraacada waxaan fahanay genetics waa maxay genetics waa barashada hidaha iyo kala duwanaanshaha ka soo muuqanayo noolaha oo waa maxay kala duwanaanshaha annaga tusaale ardayda macalinka dhammaan dadka oo dhan markii la cabiro height-keena waxaa ka soo baxay kala duwanaansho mitir iyo bar mitir iyo 2 mitir mitir iyo 8 intaba waxay tahay kala duwanaansho nooga soo muuqan doonto taasi ayaa la yiraahdaa variation waxa kaloo la mid ah qaar inaga mid ah ardayda waxay awood u yeelanayaan inay carabkooda laabi karaan tango rollers qaarna non rollers awood uma leh carabkiisa inuu doobo iska soo taagnaanaya qaar inaga mid ah suulka ay awood u leeyihiin inay doobaan qaarna wuu iska taagnaanaya oo awood uma leh inay doobaan that is what we call variations annagoo ah same species sinjiye isku mid ah ayaa waxay naga soo muuqanayo kala duwanaansho haddaan fahnay labadaasi eray ee buddhiga u ah chapterkeena arday waa inaad mar walba ogaataa aad ku celisaa haye variationka aan sheegnay waa maxay aynu qeexno what's variation kala duwanaansho maxay tahay lagu daraaseenayo genetics-ka waxaan dib idinkugu celiyay fasalkii form 2 is the observable differences waa kala duwanaanshaha ka soo muuqanayo among living organisms noolayaasha kala duwan waa kala duwanaanshaha ka muuqanayo noolaha haddaba variationku maxaan u qaybinaynaa two types of variation waxaa jira laba nooc oo variation ah mid la yiraahdo continuous variation iyo the other one oo ah discontinuous variation waxaa faham u baahan inaan kala garanno goormaan dhahaynaa kala duwanaanshahani continuous variation goormaan dhahaynaa discontinuous variation aynu aragno waxaan leenahay continuous variation marka kala duwanaanshuhu ay muujinayso kala duwanaansho la garan karo oo farqi u dhaxeeya aad ula soo halkaas variation continuous aan dhihi karnaa marka ay muujinayaan kala duwanaansho hal dabeecad markii la isla eegno hal astaan ay ka soo muuqanayso kala duwanaansho sidoo kalena saameynta ay u leeyahayna uu yahay mid ka yimid deegaanka they are intermediates marka aan leenahay continuous variation waxaa soo muuqanayo kala duwanaansho leh intermediates oo wax dhexdhexaada qofkani weightkiisu waa 50 kg kana waa 80 kani waa 30 kani waa 70 they are intermediates haddii aan aragno kala duwanaanshaha in ay leedahay intermediate dhexdhexaad u jiro sidoo kalena an influence uu saameeyo by the environment deegaanka uu saameyn ku leeyahay sidoo kalena uu ku yeelan karaa genetic laakiin both labada way isugu imaanaysaa environmental factor and genetic factor saameyn deegaankana way leedahay saameyn hidahana way leeyahay haddii noocaasi kala duwanaanshaha ay tahay waxaan dhahaynaa continuous variation way tusaale kala duwanaanshaha dad ka dhex muuqan karo dhirta iyo bini'aadanka iyo xayawaanka intaba maxaa inoo cad marka hormaan dhihi karaa waa continuous waxaa ka mid ah height-keena dheeraanta gaabnida sida hadba meesha uu marayo waxaa ka mid ah body weight-keena culayska jirhkeena waxaa ka mid ah skin color midabka maqaarkeena waxaa ka mid ah intelligence garaadkeena
dad waa garaadkooda 80 dad waa garaadkooda IQ-gooda marka abra 100 kuwa dadka dhaafeen oo genius 110 120 normal distribution curve-ga ee lagu cabiro intelligence quotient IQ-ga wuxuu dhacaa 100 ilaa 80 okay hadiiba sidaa ay u kala baxsan tahay variation-ka noocaasina waxa uu muujiyaa normal distribution curve waxa la yiraahdo bell shaped ayuu u sameysmaa hadii aad aragtid variation sawirka noocaani ah muxuu muujinayaa la yiraahdo continuous variation maxaa yeelay waxa jira dayaas intermediates waxa ka soo muuqan doono intermediates dhexdhexaad oo waxay awood u yeelanayaan inay dhexdhexaad jiro 1 ee dadka u dhaxeeya culayskooda 50 ilaa 80 dayaas intermediate waxaan leenahay continuous variation discontinuous variation iyadu maxay tahay hadaba haddaan fahanay continuous variation inay tahay kala duwanaansho inay ka muuqato sidoo kale inuu jiro intermediate in ay saameyn ku leedahay genetic factor and environmental factor wali environmental factor ku aad u xooggan yahay qofka isagoo caata markii uu gurigiisa maalmahan lagu jiro kala lockdown ka guarantee lagu jiro ee la karantiilay qofka gurigiisa joogo ee cunnada iyo cabidda uu aad u badsado miisaankiisa waa kordhaya maxaa saameyn kugu yeeshay deegaanka agashay markii hore aad waxbarashada iyo shaqada aad u ordi jirtay waxa aad qof miisaankiisa hooseeyo hadii isbedelkaasi dhacay waa continuous variation discontinuousna waa maxay waa the differences kala duwanaanshaha daadshow noo muuqato laakiin no intermediate ma jirto waxa la dhihi karo dadka tiradoodu tahay intaasi waxay u dhaxeeyaan 50 kg ilaa iyo 60 kg ma jirto wax dhexdhexaad leh ma jiro and not influenced by environmental factor wax deegaanka saameyn u ku yeelan karana ma jiro only genetic factor saameyn ku leh taasina waxaan dhahaynaa kala duwanaanshahani discontinuous variation tusaale aynta dhiigaagu blood group aynta dhiigaagu waxay noqon kartaa arday inaad tahay A sax or ama inaad tahay dadka dhiigooda O ama inaad tahay dhiiga B ama inaad tahay AB laakiin suurtagal ma aha inaad dhahdid half waxaan ka ahay dhiiga A dadka u dhaxaysa tiradaasi ee 30 half waxay u dhaxeeyaan A kuwana B ma la dhigi karo they no intermediate haddaad ka tagtid Soomaaliya ee aad ku nooshahay oo aad wadan kala tagtid deegaan kala tagtid nooca dhiigaadu isma bedelayo variation-ka noocaasi waxa la yiraahdaa discontinuous variation waxa kale oo kamid ah ear lobe tango roller ma dhigi kartid carabka duubistu dadka awood u leh inay tango rollers ka noqdaan inay dhahaan halfna waxaan ka ahay roller halfna waxaan ka ahay non roller suuragal ma noqonayso ida waxa tahay roller or non roller wax dhexdhexaad ma jiro ear lobe dhagaha qaabkay u sameeyeen eeda inaad tahay attached mid dhagihiisu ay ku dhagan yihiin or ama free mid ay ka baxsan yihiin fingerprintiga ma jiro qof dhexdhexaad ama isku mid ka noqonayaan sex jinsigaagu ama waxa tahay lab ama waxa tahay dhadig waayahay waxaan fahanay farqiga u dhaxeeya kala duwanaanshaha markay tahay continuous waxa shardi u ah inay jiro intermediates inay soo muuqanayaan sidoo kale inuu saameyn ku yeelan karo hidaha genetic factor iyo environmental factor tusaalooyinkoodana waa kuwa meesha kaaga muuqdo height body weight intelligence iyo wixii la halmaala discontinuous variation markuu yahay kala duwanaanshaha discontinuousna waa marka ay wax intermediate jirin oo aysan deegaankana wax saameyn uusan ku lahayn waxa kamid ah aynta dhiigaaga blood groupkaaga tongue roller ear lobe sex and fingerprint waaye waxaan u soo gudbaynaa barashada eray bixinta la xiriirto chapter-kan ee ardayga laga maarmaanka oo ah hadhow markii aynu guda galno ka shaqeynta xeerarka uu yeelan doono genetic terms waxa uu horeeyaa inuu baranayno in badan aad maqashay chromosome afka Soomaaliga waa chromosome Englishku waa chromosome Arabiguna waa la mid oo waa chromosomat chromosome-ku waxa la yiraahdaa waa miiqyo qara waaweyn oo sida dunta oo kale weeg is a thread like structure waa miiqyo leh qaabka dunta oo kale chromosomes-ku waxaana laga dhaxelaa in the nucleus bu'da cell-ka ayaa laga helaa unuga bu'diisa chromosome-yadu waxayna noo wadaan that contain waxa ku dhex jira genes hidda-sidayaasha chromosome-yadu waa miiqyo qara waaweyn oo sida dunta oo kale lagana helo bu'da unuga waxayna xambaarsan yihiin hidda-sidayaasha waayahay chromosome muuqaalkiisana wuxuu sameysanayaa chromatin isku yimi
ayaa la sameeyay two chromatin isu yimi ama sister chromatid ayaa waxay sameeyaan hal chromosome oo dhameystiran tusaale this one is a sister chromatid halkaasi waa dhaxda iska qabsan waxa la yiraahdaa centromere sawirkan inoo dhameystiran hadda inoo sameeysanina wuxuu noqonayaa chromosome aadamuhu bani aadamka human wuxuu leeyahay 46 chromosomes 46 chromosome ee laga helayo 23 ka yimi from father and 23 from mother wayahay let us proceed the next term terminology ga ama erebixinta labaad aynu baranayno waa gene muxuu yahay waa is a unit of heredity markaan ka hadlayno halbeega ee hidaha waa shayga mas'uulka ka ah in hidda la yar waxaana laga dhaxelaa DNA-da waa segments ama region of a DNA waxayna go'aamiyaan sifada uu yeelanayo tusaale dheeraanta the gene-ka u taagan for tallness dheeraanta waxaan soo qaadanaynaa T inay taagan tahay tallness macnaha waxaa laga wadaa DNA-da shakhsigaasi waxaa laga dhaxelayaa genes u kod gareynayo inuu sameeyo dheeraanta sidaas daraaddeed waxaan leenahay marka gene-ku waa unit of heredity waxaana laga dhaxelaa it's composite or it consists of DNA hidda-sidaha genetic material that determines wuxuuna go'aamiyaa a particular trait sifo gaar ah ama astaan gaar ah ayuu muujiyaa maxaan fahnay chromosome-ka inay yihiin miiqyada ku dhex jira nucleus-ta ee mas'uulka ka ah inay xambaaraan gene-kuna inuu yahay unit of heredity halbeega hiddaha lagu tilmaamo uuna mas'uul ka yahay uuna u kood gareeyo nooca sifada uu qaadanayo dheeraan gaabni red flower white flower iyo waxa la halmaalo haddaynu u gudubno erebixinta saddexaad waa ereyga ah alleles af Soomaaligu wuxuu noqonayaa qandiyadina maxay yihiin allele arday wuxuu mar walba ardayga ku wareeraa inuu isku khaldo gene iyo allele haddaan kala saarayna hadduu ilaahay allele gene-ku waa garanay waa point ama region of a DNA oo go'aamiso particular trait sifo gaar ah haye allele-ku waa maxay waa alternative form means different forms of same gene laba hidda-side oo isku mid ah oo hal sifo u taagan balse kala muujinayo laba arrimood oo maxaan ka wadaa haddii tusaale ay xarfahani labadantii noogu taagan yihiin tallness dheeraan labadantiina ay noogu taagan yihiin dwarfness waxaan ka wadaa shortness gaabnida ama cilinimada haddaba labaduba waxay noogu taagan yihiin height-ku muxuu noqon karaa either tall mid dheer iyo dwarf ama short gaaban sidaa daraaddeed markay arrintaas sidaasi tahay ayaynu dhahaynaa allele markay iskugu same genes oo different noo tilmaama haddaan sii fududeeyo tusaale waxaan soo qaadanaynaa caagadaasi halkaa ku sawiran ee biyaha la sifeeyo mineral waterka ku jirto waxaan ka soo qaadaynaa bal ka soo qaad ardayow inay gene ay u taagan tahay gene waayahay aynu caagadaas biyaha lagu shubto mineral waterka ee biyaha la sifeeyey aan dhahno waa gene okay haddaba meeqa shirkad ee biyo samayso ayaa ka jirta deegaanka ku nooshahay way badan yihiin maxay ku mideysan yihiin inay yihiin mineral water pure water shirkadaha biyaha sifeeyo balse maxay kala qaadanayaan different names magacyo kala duwan marka aan dhahayno dhammaan waa shirkad biyo gene ayaan ka hadlaynaa inay yihiin genes laakiin alleles goormaan dhahaynaa alleles waxaan dhahaynaa markay shirkadaasi ku soo baxdo magacyada kala duwan leh ee deegaanka aad joogto biyaha laga cabo abba ama ha noqoto rayaan ama ha noqdaan hubaal shaafi caafi iyo nooc walba ay deegaanka aad joogtid laga isticmaalo maxay wadaagaan inay yihiin mineral water dhammaantood maxay ku kala duwan yihiin they are same genes but different waa kala duwan yihiin markaas waxaan ku magacaabeynaa allele hadda meelo fahanti halkaa meelahaysaa marka genesku isku mid ah balse ay u kood gareeyaan different trait kala duwani ayaan u gudbaynaa allele dhahaynaa balse marka kale ee caadiga u taagan yihiin waa gene allele-ku marka wax kale ma ahee waa alternative form of gene
halkaas ayaan uga baxayaa sawirkaas wuxuu inoo muujinayaa oo kale kaga faa'iideysanaynaa inuu yahay chromosome-ka marka labada chromosome the one from mother and the one from father ay isqaadanayaan ay isqabsanayaan waxa loo yaqaan chromosome-yadaasi homologous chromosomes halka iska qabsadaan ay dhaxdana waa centromere meesha ay ku jiraan alleliska ee laga dhaxelana waxaa la yiraahdaa loci waana arkaynaa jamacooduna waa loci or loci labada dhigi kartaa labada pronunciation waxaa la yiraahdaa okay loci waa maxay locusku waa meesha hadda aan tilmaamaynay ee chromosome-ka specific region waa meesha gaarka ah ee laga dhaxelayo geneska ay ku jiraan ama alleliska ay ku jiraan ayaa la yiraahdaa locus waa specific region specific position on chromosome where a given gene is found laga helo locus waxaan ku sheegnay halka specific gene walba oo muayana ee khaas ah meesha uu ku jiro godku ku jiro ayada locus marka jamcan ka dhigayno loci ayaan dhahaynaa ama loci waxaa jira gene la yiraahdo dominant gene goormaan dhigi karnaa gene-kani waa marka gene-ku uu yahay shiiqiye midka isaga wax qarinayo waa gene-ka saameynta ku leh dabeecadda soo muuqanayso ee midka kale haddii la isu keeno gaamni iyo dheeraan oo tafiirti soo dhasha dhammaan ay wada dheeraadaan maxaan dhahaynaa gene-ka dheeraantu wuxuu awood u leeyahay inuu mask qariyo gene-ka gaabnida sidaa daraaddeed waxaan dhahaynaa dominant gene wuxuuna muuqan karaa mar walbo in heterozygous state haddii aan dhahno this one is heterozygous waana baran doonaa T for tallness and T for shortness haddii la yiraahdo geedkani muxuu noqonayaa tall plant ayuu noqonayaa why because tallness is dominant over dwarfness ama shortness dheeraantu waxay qarisaa gaabnida mar walba ay dominant gene-ku waxaa loo qaataa capital letter xaraf weyn recessive gene-ka shiiqsanaha kii hore maxaa nidhi shiiqiye oo wasaa wax qarinaya kanina waa recessive gene shiiqsana ah is a gene waa gene-ka that kaasoo cannot influence aan saameyn ku yeelan karin characteristics in the presence of dominant gene markii ay dominant gene meeshan uu joogo aan dhahnay T capital T small tallness and shortness geedka soo baxay waa tall aan dhahnay maxaa ku dhacay shortigi because it's recessive gene waa gene shiiqsana ah oo waa la qariyay waxa kani waxaan ogaan doonaa say ku timid Mendel ayaa inoo sharaxi doono waayahay homozygous waxaa jira laba bacrimine isku jaada iyo bacrimine kala jaada goormaan dhihi karnaa homozygous waa iso condition waa xaaladda gene-kan goormaan dhihin homozygous where an individual has two similar alleles on this gene-kiisa markii laga helayo two similar alleles tusaale laba b oo ka bitaala oo balaag u taagan this one is homozygous maxaa ka soo horjeedo waxaa ka soo horjeeda heterozygous oo ah b capital iyo b small asagana aan aragno bacrimine isku jaana waa kii hore kanina waa bacrimine kala jaada kala nooc ah waa is a condition xaaladda where individual has two different allele waa taan hadda sheegaynay tusaale labaad markii uu yahay laba h oo capital ah ama laba h oo small ah waxaan dhahaynaa waa homozygous waa bacrimine isku jaada marka aan dhahayno h capital and h small waa bacrimine kala jaada heterozygous waxaan filayaa labadaasina inay noo kala dhaceen waxaa jira laba arrin kale oo isku eg oo ah phenotype iyo genotype af Soomaaliga muxuu noqonayaa phenotype hidamuujiye waa maxay is the external means the outward waxa ka soo baxaya soo muuqanayo waa muuqaalka uu soo saarayo noolaha oo maxaan dhahnay this one xarfay ah tt balse tall markaan niri dheeraan color of the skin markaan sheegno indhaha blue markaan dhahno ama brown eye markaan niraano kulli waa phenotype waa hidamuujiye hiddo tilmaamana muxuu yahay genotype-ku waa genetic constitution or genetic makeup waxa uu ka samaysan yahay isagu waxa inta badan loo qaataa xarfo bb waa genotype tt waa genotype yy yellow iyo green markaan soo qaadanayno waa genotype balse markaan sifada ku tilmaamaan waa yellow it's a phenotype haddaba hidamuujiyuhu waa noolaha waxa ka soo muuqanayo genotype-kuna waa xarfaha aynu adeegsan doono si sifada soo muuqanaysa aynu u sheegno mar walba ay genotype-ku waa xarfo la qorayo sawirkaasi muxuu inoo muujinayaa phenotype iyo genotype geedkaasi inoo muuqda xarfaha tall markaan dhahnay
waa phenotype maadaama waa geed dheer kaasina is a dwarf waa geed gaaban waa phenotype kanina tall waa geed dheer waa phenotype haddaba dheeraanta waxaa inoogu taagan labada xaraf oo tt-da is a genotype waa hiddo tilmaamaha dwarf gaabnida ama shortness-kuna waxay inoogu tagan this tt labada t oo smallka ah iyaduna waa genotype haddaba waxaan filayaa inaan fahnay phenotype iyo genotype waxaan ku soo gabagabeynaynaa erey bixinta terminology-ga waxa la yidhahda hybridization hybridization muxuu yahay waxaa ka soo horjeedaa pure breeding oo ah hybrid barxani waa habka la isku keenayo la isku talaalayo laba shay individual oo genetically different ah kala duwan tusaale geedkaasi waa homozygous tall waa homozygous bacrimine isku jaada oo dheer kaasina waa homozygous dwarf bacrimine isku jaada oo gaabni ah maadaama labadooda aan isku karoos gareynay waxaa inooga dhashay geed heterozygous ah bacrimine kala jaada this one marka waxaan dhahayna waa hybrid waa barxani test cross waa markaan hadda ka shaqayn doono oo xarfaha waxaan adeegsan doono crosska markaan go'aaminayno individualka waxa uu qaadanayo wada inuu yahay homozygous iyo inuu yahay heterozygous waxa kale go'aamiyo ayaan adeegsan doonaa test cross waa marka tusaale aynu leenahay tt oo tallness ah aan ku cross gareyno tt oo shortness ah marka aan u celinayno xeerkan ku baran doonaa Mendele gametiska aan u celinayno marka isku midka yihiin la isku dhibo hala laga soo qaataa cross fertilization dhacayo oo gametiska male gametes iyo female gamete oo ah ovum or egg iyo oo xawada ah oo ah ugxanta iyo sperm oo xawada ayaa la isku cross gareynaya waxa soo baxayo tt process-kan aan adeegsanayno habkaas la yiraahdaa test cross sawirkana sida kaaga muuqdo tt waa isku cross gareynay waxa noo soo baxay jiilka koowaad oo f1 la yiraahdo first generation sidoo kale waa isu sii cross gareynay waxa noo soo baxay f2 oo ah filialka labaad second generationka labaad haddaad fahantay erey bixintaasi ardayaho waxaad ka jawaabtaa layligan soo socda oo ah qeex erey bixinta soo socota genetics heredity iyo variation sidoo kale waxaad sharaxdaa macnaha ereyadan soo socdo ii sharax gene maxaa laga wadaa chromosome maxaa laga wadaa waxaad kala socdaa distinguish haddii lagu dhaho or differentiate the following kuwaan soo socda oo ah continuous variation kala duwanaanshaha continuous variationka iyo discontinuous variationka aynu soo baranay kala sooc hidda muujiye oo genotype ah iyo hidda tilmaame oo genotype ah iyo phenotype oo hidda muujiye ah iyaguna kala sooc dominant shiiqiye and recessive shiiqsana iyaguna kala sooc homozygous bacrimine isku jaada iyo heterozygous bacrimine kala jaana mid walba ay kala sooc maxay yihiin aad baa u mahadsantihiin halkaasi waxaa inoogu eg cashirkeeni koobaad ee geneticska